بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يكون كيني براه بالشدة يبرنامج كيني بالشدة يبرارجينته qodobkii labaad ayaynu soo qaadanaynaa muuqaalkan kii ka horeeyay ku ballan qaadayna isaguna ka hadlayno qodobkani wuxuu ku sidkan yahay ama ku lamaan yahay ama aan marnaba kala hadhaynin kan kii ka horeeyay aan kaga hadalay muuqaalkii ka horeeyay qodobkan kaga hadalay ahaa hablaha iyo dhibaatada loo geysto kana waa mid kii ka dhalanayo oo maxay ahayd tooleed marka midhaha la beero oo geedku marka ininta la beero ee geedku soo baxo midhaha laga goostayo cuntooyinka kala duwan kana waa ilanta la faraxumeeyay cidda faraxumaysay markay dee gudubtan gasho iyada maxaa ka dhalanaya haddaan qaab la marsiinin iyo haddii la marsiyaba bal qofkan isagoo horta muxuu muxuu qofkan ka helayaa meesha wiilka isagoo maxay garaad laawi ay hayso intuu soo xidhxidhay in Soomaaliyeed ama in muslima ama in dee maxay ahayd tolay bini aadmiya intuu faraxmeeyo sharafteeda meel kaga dhacay kadibna doonayo nolosha iska sii noolaado iska taxtaxaashiyo adduunkan korkiisa waxa isaga u kaydsan waxa u dhitaysan waxa u garoorsan isaga inanka waxa sameeyay aqligiisa yaree aadka u liitay bilagaraadkii waxa uu ku kiciyay ma waxa uu rajaynayaa ama uu naawilaya ama uu yoolka leeyahay inta uu cadho garooriyo oo ciil yagleelo inuu dabato ku ceesho caalamka korkiisa isagoo iska taltalaabsan iska laaflaafiyonaya oo waxaan dhici haynin urugada gunta iyo uurku taalado halka dhigay isagana waa mid daba socoto ha dheeraato ama ha dhawaato intaan aakhire la gaadhin aakhire waa halkeeda iyo ilaahay goodiga uu balan qaaday laakiin adduunka inta la joogo ama isaga walaashii laga gooyay ama hooyadiisa weyn lafteeda laga gooyay ama ehelkiisa qaraabas meelan ka soo gasho ama mid sidaan oo kale lagu sameeyay isaga tafta ha u gasho oo ilaahay alfa ugu daray maba dhici karto sunnaha ilaahayna kama mid aha in qofka godobta galay maxay ciilka ibqaalay ceebta ka gorooriyay dhigiisa inuu iska noolaado adduunka iska dul taxtaxaasho oo farxad iyo ku noolaado reyn waa mid ka dambaysa qubada isagu maxay tolay galay waa ka daba imanaysa qisas way fara badan yihiin haddana isna bal xagga waxyaabo dhacay iyo dee u soo qaata cibra sida u dhacday iyo dee raadka ay leedahay qisooyinkeedu inta badan aanay dee sugnayn oo aynu kaga kaaftoomi karno dee quraankiina wanaagsan iyo xadiistiina dee diinteena karaamada ilaahay waxayna fartay ay haddana baraarujin ahaan iyo wax ku qaadasho tusaale ahaan ba loo soo qaataa soo sugan tahay mooyaane Soomaalidu waxay tidhaahdaa wiil iyo gabadh baa xiriir lahaa ama inan iyo gabadh ay xiriir ka dhaxeeyay oo dee sheekahaas u lahaa oo doonayay inay mustaqbal samaystaan oo inantu iyadoo ka dhabahay doonaysay dee islahayd qofka inuu mustaqbaliye wax ku samayn doona reer laakiin isagu uu ku dheeldheelayay ama ay wixiisu iska ahayd dhalanteed ayaa waxa la yiri soo guriga cid la joogo hooyadii walaashiin oo suuq ama dibadda ku maqan yihiin ayuu ku guriga kaalay guriga intii joogay markaas uu wuxuu doonayay inuu bal hooyadii suuqa ku yara tago kadib wuxuu balamiyay baa la yiri xir istiisoo kala ah oo aan dad ahayn dad la moodiya oo iyaga waxba dhaamin aqligiisa kii uu ku soconayo inuu ku soconayo ku halkaas jooga waxay ahayd hore dawadiin manasa gabadhaas iyo markaa idiin timaadada ka danaysta aniga day ugu siisima marka hooyadii suuqa iskaga dhacay hooyadiina way yara karaasatay way yara suuq kala weydo in dooray raagsatay oo waxay tinaa bal orabo guriga qabo oo inankii u yeertay maxaa helay bal soo eeg intii walaalaha ahayn bay isweydaarteen isagoo hooyadii ku soo socday intii soo weydaartay gurigii uu bahalaha sii dhigay waraabayaasha wixii idin ku yimaada halka fagfaga ay dee walaashii soconaysa afka ka soo gashay halkiiba wixii wala damacsanaa inanta Soomaaliyeed kale kan cararaysa muslimka ah ayaa dee walaashii isaga laga gooyay hadda markuu yimaadee dee afkala qaad mid ku noqotay maxay tari kartaa dee ha hum booranaya dee sidii qabarka marka lagu weydiiyo su'aalaha ka jawaab waayo kale marka taas walkay Soomaalidu oran jirtay boodaan harimo booraan hadimo ha qodin hadda qodidno ha dheerayn ku dhici doontaana mooyaane tu kale qisa ayaan la soo wariyaa leeyahay nin baa gurigiisa ka shaqeeyay magaalada iska galay dabeeto kadib isagoo meel dukaan jooga ayuu bay inan aad qurux badan arko dad uu sahin kari waayo ku dhaqaaqo u dhunkaday isagana gurigiisa loo soo weerarto ninkii biyaha u shubayay baa gabadhiisii way wax tusay hore baa uu shubi jiray iska dhaqaaqi jiray hore u soo socdo intii uu inanta ka jiray leeg musna ka jaray hadhow markuu gurigii yimaaday ayay gabadhiisii isaga kala ku dhigtay sayid maanta waxaad samaysay ka sheekayniyo shaqayn maayaan waxaad samaysay isna waa ka argagaxay tolo xagga laga arkay micid ku arkaysan miya lagu soo sheegay marka walaal ku xidhnaa masiga guriga ma inanta guriga timaadada waxa ku samaysay isagoo aan firiirsanday waa ka sheegay mid baan ku yara dhawaado waxoogay ka sii yar macaan siiyay ha yara dhunkaday sayid deynta aan baa laga jaray marka inaka waxa sameynaya wiilka ku hamiyay ka sameeyay raaxo sugaayay ka isla aad sameeysid ka maxay tole jidgooyadaas kale marka ku jira waa mid ku dhitaysan oo ku hortaala nabiguna inankii saxaabiga ahaa u yimaaday
ee ku yidhi waxaan doonayaa in xumaanta iyo sinada la fasaxo waa kii tusaalayaal nolol soo qaatay yidhi hooyada ma la jeceshahay habaryarta ma la jeceshahay idada ma la jeceshahay walaasha ma la jeceshahay kuwa dhali doonto ma la jeceshahay in lagu sameeyo waxaan markuu may la soo istaagay wuxuu dee hablahan doonaysa waxaan ku samaysaano dad bay hooyooyinkood yihiin dad bay edooyinkood yihiin dad bay habaryarahood yihiin dad bay walaalahood yihiin iyagana ma jeclaan lagu sameeyo xumaanta markaad u bareedhay aad waxaan samaysay ha ku rajaynin ha niyeysanin ididilo ka gelin inaad adduunkan korkiisa ku ceeshto adiga oo maxay ahayd toole ceeb la'aan taxtaxaashinaya waa wax ku taala tan goor laga jaraba aakhiriinta isla gaadhin bal markasta inta ku baraarugsanow markasta oo sheedaan iyo naftaada isku ka tagaan ay ku soo riixaan ay waxaan kale ku soo riixaan bal intaas horta soo dhigo hooyada lagu sameeyay maanta halkan walaasha ayolkan la soo waday in adeerta ayolkan taala habaryarta iyo idada qaraabooyinka ay ka wada agdhowa oo maanta taas wada haysato halka wada ooyaya aadna halkan dhigtiya dhamankaas hayso halkan kolba dhinac eegayso taasna soo dhigo halkan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.